halkani waa barxadda weyn ee Fardusbaak ee magaalada Johannesburg xaafadda Soomaalida ee Meefia boqolaal shacab dadweyne ah ayaa isugu imaaday kuwaas oo tukanayay salaada ciida wajiyadooda waxa laga dheehanayay farxad waxay isugu jireen caruur iyo ciroole si qurux badan u soo labistay I've created you just for nothing wa annakum ilayna la turja'un and that you will not go back to us all of us will go back to Allah subhanahu wa ta'ala the purpose that Allah subhanahu wa ta'ala he has created us for Allah has mentioned in the Quran Allah say wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dhammaysanay ramadaanka ilaahina subhanahu wa ta'ala ku siiyay caafimaad iyo aqli aad ku cibaadaysan rabbi ku caabudo subhanahu wa ta'ala waa nicma wax weyn goysa laakiin waa laga qariyay in badan muslima maaha in badan xanuuno iyo jiray qabaan la soo milaayihiin nicmada marka ilaahina siiyay subhanahu wa ta'ala shukriyeedu waa tan maanta aad u fadhidaan إلهو فردوس العبارة بوديسن إلهو نجي إلهو جنة نقوم من نيسو عافيمات إلهو نقوم من نيسو عافية إلهو نقوم من نيسو الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال waxaan tahniyada iyo hambaliyada maalinka barakeysan ee Ciidul Fidriga halkaan waxaan ka salaamaa ummadda Soomaalida dhammaan meel walba dunida dacaladeeda ay ka joogaan qaasadan ehelkeyga qaasadan dhalinyarta aan ku saaxibnay Ilaahay dartiis ee Golden Boys inta idinka salaamaa waxa idin leeyahay Ciid Mubaarak ciid wanaagsan Ilaahi nasiyay isaga kuwa baale bismillah abshir abdi abdullahi ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr muslimiinta dhan meel ay joogaan waxa uu hambalyeynaa maalinka ciidda quruxda badan kullu aam wa antum bikhayr ciid mubaarak dhamaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan leeyahay dhamaan qaraabada familka asxaabta waxaan idin leeyahay ciid mubaarak halkaan waxaan ka salaamaa ummadda Soomaalida dhammaan meel walba dunida dacaladeeda ay ka joogaan qaasadan ehelkeyga qaasadan dhalinyarta aan ku saaxibnay Ilaahay dartiis ee Golden Boys inta idinka salaamaa waxa idin leeyahay ciid mubaarak magacaygu waa Xasan Cabdullaahi Weeliye afrax Iroobe halkaan waxaan ka salaamayaa hooyaday Faadimo Socdaal Aftidoon walaalahay kulli Fahma Cabdullaahi Deeqa Cabdullaahi Raxma Cabdullaahi Kooshin Cabdullaahi Cabdirasaaq Cabdullaahi Sahra Cabdullaahi عول عبد الله ضمان فملك رأي عبد الله ولي مال بيجوجان إيركي قرابة أصحابته يصوم الوين ودن وحن الله هاي فرحات كل عيدة وكل عام وأنتم بخير. برجوه الرئيس الحمد لله رب العالمين إلى بهم علينا أنا ومقعي وياي محمد إبراهيم عفاري وكم ذا شاليد Soomaaliyeed ee ku nool wadanka South Africa qaasatan magaalada Johannesburg waxaan halkan rabaa inaan la wadaago farxadda Ciidul Fidriga dhammaan ummadda muslimiinta qaasatan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaan ku dhaqan wadanka South Africa ku dhaqan Johannesburg degan iyo dhammaan caalamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay farxad ku ciida ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed shanta qaaradood ee adduunka kala joogta aan ku leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ka salaamaynaa ciid wanaagsan insha Allah anagoo ku sugan South Africa insha Allah ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan familia meel walba ay ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah